إن شاء الله أتمنى ويبقى شرح دواعي قدوميها سود ويست دياسبورا كونغرس عبد الله قرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore aad farxad bay noqotay inaan maanta la iskugu yimaado kulankan oo uu marti noogu yahay xildhibaan ama professor Idris oo aan ognahay taariikhdiisa iyo howluhu ka qabto dhulkeenii. marka waxaan rabtaa qaybta koobaad culayska saaraya dhibaatada maanta haysata gobolladeennii. markaad u fiirsatid Soomaaliya dhinacan waqooyi haddaad eegtid ilaa gobollada dhexe ilaa xamar Soomaali badankeeda meel kasta nabad iyo waxay ku nool yihiin dadkoodu wanaag. laakiin markaad eegtid lixda gobol ee gobollada aan degno gaar ahaan qowmiyadda Digil iyo Mirifle waxaa muuqata inay ku jiraan xabsi. waa xabsi dusha ka furan waxay ku jiraan. waxaana uu sababa aan oran karnaa harta maamulka meesha ka jira laftirkiisa madaxweynaha koonfur galbeedna ummadda daacad waa maaha. waxa weeyaan waa nin dana gaara wato ama ka shaqeeya maxayda shakhsiyaadkiisa. waxaad arkaysaa dadkii abaarihi ay ku dhaceen baabuur baa loo dirayaa waa la soo qaadayaa muqdisho xero laga furtay ganacsi baa laga samaynayaa adduunkii baa laga raadsanayaa lacag. waa dadka xerooyinka oo dhan ilaa dad Puntland tirtid Somaliland masalan tirtid. markaas waxaa harta aan sii kala oran lahaa waxaa dhibaatadaasi qayb weyn ka sii ah annaga dadkeena qurba joogta ah. haddaan xaqiiqda ka hadalno dadkeena qurba joogta ah ayaa mas-uuliyad weyn ay ka saarantay dhibaatada xaggaa ka jirta. sababtoo ah dadkaas iyagu xabsigayba ku jiraan oo dhibaata haysata. laakiin dadkeena dibadaha jooga weli ma isweydiinay sidaan ku badbaadin lahayn dadkaan ka nimid. waxaan malaynayaa dadkeena qurbaha jooga nin walba haddii gurigiisa cunto u taala ciyaalkiisu nabada ugu seexanayaan ciyaalkiisu iskuul u tegayaan waa la iloobaan malaynayaa dhulkii laga yimi. marka waxaan ku boorin lahaa jaaliyadeenna iyo dadkeena qurba joogta ah in culayska aan saarno sidii uu dadkan ka nimid iyo dadkan ka nimid badbaadadooda aan ooga shaqayn lahayn. waxaa kaloo xildhibaanka ka codsanayaa ama haddaan jaaliyadda nahay aan ka codsanaynaa anagoo og dadaalkaaga iyo wanaagaaga in aad gudaha markaad ku noqotid sidaad walba howlaha samafalka waday inaad u sii wadid anagoo kugu garab taagan anagoo garab kugu siinayna anagoo mar kastaba iyo meel kastaan joognaba ka shaqayntoona samata bixinta ummadda ku nool gobolladaasi. markaas waxaan leeyahay dhammaan jaaliyadda inaan midnimo samayno inaan wadajir samayno inaan ka fikirno dadkeennii. midda kalena gaar ahaan waxaan ula hadlayaa dhalinyarada ayuu welibana aan aada si gaara ula hadlayaa. sababtoo ah dhalinyaradu waa dadkii mustaqbalkii dhulka waa dadkii iminka dadka badbaadin lahaa waa dadkii waxqabad laga sugayay. odayadeeni hore way soo dadaaleen waxay hawl soo qabteen way soo qabteen laakiin hadda dhalinyarada looga fadhiyaa inay la yimaadaan isbeddel iyo firfircooni. waana salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waqtigooni yar dartiya baa gabagabeeyane barnaamijkii soo dhaweynta wayba gabagabeeyane afhayeenka Southwest Community Organ Cabdirasaaq Sheekh Aadan.